dad badan baa isweydiinaya saldanada tanu waxay bilaabatay sanadkii 1907 waxaana bilaabay suldaan cilmi fagaas suldaan cilmi fagaas wuxuu hayay muddo 20 sanadooda 1927 waxaa lagu caleema saaray magaalada Hobyo cilmi fagaas Hobyo lagu caleema saaray suldaan cilmi fagaas sanadkii 1927 الله نحرسته مركو geeriyooday waxa xilkaas qabtay suldaan Faarax Xasan Faarax Madow sanadka 1952 waxaana lagu caleema saaray geedka la yiraahdo Baraacuud oo dabaro ku yaalo caanka ah dooxa golol ku yaala in badan buu noolaa oo soo talinayay Faarax Madow الله نحرسته مركو geeriyooday waxa xilkaasi magaalada Gaalkacyo loogu magacaabay 2012kii suldaan Muxyidiin suldaan Xasan suldaan Cilmi asagana Gaalkacyo lagu caleema saaray Allah u naxariisto wuu geeriyooday saldanadu markaas aan sheegay waxay ahayd Cilmi iyo Xasan waa isdhaleen inta kalena Xasan baa dhalay hadda waxay u soo gudubtay maanta caleema saarayno waxa weeye suldaan Xasan Macallin Siciid ama aan iraahdo suldaan Xasan Siciid suldaan Xasan Cilmi Fagaas muxuu yahay marka waayo suldaanka galabta aan u fadhina ee nool ee rabnaa inaan bedelo waxa weeye waxa uu ku dhashay geedka la yiraahdo Goobsoor oo bariga ka xiga sinaha golol ee afraaqo dadka ay aqoon og yihiin sanadka 1956 yaraan ayaa lagu keenay magaalo wuxuu quraanka ka bilaabay iyo marcawadaba ilaa Gaalkacyo ilaa Xamar wuxuu ka mid ahaa ardadii ugu horeysay ee 70-yadii dalka dibadda ugu baxday scholarship-yada wuxuuna bartay cilmiga maadiga isagoo darajooyin kala dushadooyin kala duwan ka qaatay inkastoo in badan oo ahaa dibad joog haddana 20 sano u dambeysay ama 15 sano u dambeysay wuxuu ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee la shaqeeya salaadiinta aan soo sheegay iyo deegaankaba waa nin aqoon-yahana waa nin way araga waa nin haddii ilaahay ku raacay masaarkiisu ay dhaxalkaas ku yimid dadka halka marka isku yimid waxaan rabaa inay dib u sii noqdo cilmi fagaas fagaas waa magac naynaas maahan fagaas nur cadaal oo jiray wuxuu la dhashay bidaar nur cadaal Soomaalida waxay ka dhax yihiin meesha bisinku dhibicdu bisinka uga jirto kale ciidan kaliya kuma koobna bidaar nur cadaal waxa ku abtirsada oo ahaa Abdullaahi Ciise Maxamuud aabii xorriyadda Soomaaliyeed ee calankeeda deegaanka kan aan ku caleema saarayno waxa weeye waa saldanada ugu taariikhda dheer leh ee shanfac maraysa saldanad shacfan maraysa oo joogta Gaalkacyo ma jirto laba iyo la maraya iyo hal iyo marka waa suldaanka ugu abtirsiga dheer ee dhaxlay ee awoowaha ah taas tixgelinteeda iyo mudnaanteeda waxaan rajaynaynaa inaad ducada ku kabtaan si uu u noqdo mid kula daaha wax badan qabta waqtigu waa yar yahay suldaanka aan u fadhinaan raba inaan idin baro taariikhdu waa sidaas waa suldaanka soo weyne dhinaca kale maadiga ay ka barteen oo Abdullaahi Ciise ka taqaanaan marka la isku soo xooriyana waxa la yiraahdaa reer Nur Cade waa dhibic Soomaaliya oo dhan Jalal Daawud ka mid ah dadka dhaleen marka hal barakayso maadiga ku barakaysta suldaanka ku barakaysta wabillahi tawfiiq